Webiga Shabeelle ee mara degmada Buloburte ee gobolka Hiiraan ayaa ku fatahay qaar ka mid ah xaafadaha degmada Buloburte. Qoysas fara badan ayaa ka barakacay saakay xaafadaha ku teedsan webiga sida Indhaceel oo aad ugu dhow webiga. Qoysaskii ayaana u qaxay xaafado ka fog webiga oo ka tirsan degmada Buloburte. Qaar ka mid ah dadweynihii degnaa xaafadda Indhaceel iyo gudoomiyaha xaafadaasi ayaa warbaahinta la hadlay isla markaana dalbaday in loo soo gurmado. walaalayaal waxaa jirta inay biibaxan lagu soo fatahata aad u weyn iyadoo kii beledweyne oo nala joogay hadeerna waxay yimideen indhaceelna saaka waa aragtaan inaan ka qaxayno saas baana haysato saas baa jirto waxaan leenahay walaalaheenna ilaahay baa deeq bixiya laakiinse inay noo soo gurmadaan ay noo soo ordaan fatah waaye macnaha webigii yaa nagu soo yaacay Indhaceel haddii aan la huran yahay biyihii carradii ay qabsadeen dhabowdii waa kala go'een magaaladii hoose ma la aadi karo haddii aan la huran yahay waxaan ka codsanaynaa hay-adihii wax qaban jiray Hirshabeelle haddii aan la huran beledweyne haddii aan dawladda intaba waa codsanaynaa in yacni mataqaanaa ay wax ka qabtaan ayaga unbaa wax qaban jiray haddii aan la huran yahay jidadkii waa kala xirmeen waa barakac waa xaafadda Indhaceel laanta labaad iyo wixii u dhow soonaheeda run ahaantii markii xilliga roobka uu dhaca sida uu daa mar walba kaligan wuxuu sameeyaa fatahaad aad u ballaaran oo dhammaan xaafadda Indhaceel saameeyo xaafadda Indhaceel waxa markii horeba iyo degmada Buloburte guud ahaan markaan ka hadalno waxa markii horeba culays waxa saarnay gobolka beledweyne ayaa noogu horeeyay barakac noogu horeeyay culayskii xagga ka yimid ayaa degmada ku soo jabay annagoo culayskii barakacii degmada gobolka beledweyne markii horeba marti gelinay ayaa haddana waxaa yimid culays kale oo degmada ah keligaan hadda biyo badan oo wadaa biyahan hadda xooliyay ku socdaan eriyadan dadkii deganay oo dhan way qaxeen ugu soo baxday waa ummadii xaafadda Indhaceel waxay ka bilaabataa degmada Buloburte ee koowna ka bilaabatay waa xaafadda Indhaceel waxa ku soo qaxay dad barakacaho badan oo beledweyne ka yimid ka bacdina ayadaa barakaca berga ayadaa barakaca waa mahad ilaaha biyaha keenay xaafadda Indhaceel biyaha ku soo baxay fasahaado marka waxaa la rabaa wax loo qaban karaa in wax loo qabto xaafadda degmada Buloburte inay biyo ku soo baxeen qaasatan xaafadda Indhaceel waxaan maanta aan maro haynaa in ay nagu soo barakaceen dad reer beledweyne ah waxay nala degan yihiin xaafaddii ayagoo sidii dadkii u joogana waxaa meeshii ka sii barakacay dadkii xaafadda degnaa oo hadda aad arkaysaan meeshaa iskugu soo baxay iskugu imaaday waxaan u sheegaynaa marka intaas aan soo sheegnay waxaan u sheegaynaa in ay gurmad degdeg ah ay la soo gaaraan ummaddan tabaalasin ay soo caawiyaan ugu dambeyn gudoomiye xigeenka dhanka amniga degmada Buloburte Ismaan Geedde Cilmi iyo kusimaha gudoomiyaha degmada Buloburte Liban Cabdi Buruuso oo kormeer ku tagay meelaha qaar ee webiga Shabeelle fatahaadda ka sameeyay ayaa ku baaqay in si degdeg ah gurmad loogu sameeyo qoysaskii ay saameysay fatahaadda webiga Shabeelle wal annaga hadda dhibka beledweyne oo faraha badan uma jiro laakiin wax badan ilaa 3 xaafadood laga barakacay waxaan jeclaalahay marka inaan idin la qaybsano arrimahaas nafteenu aad aragtaan noo soo dirtaan kormeerkan oo noo yimaado aniga nafteena intaasna waa cusalaha insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo dhinaca adiga dadkaas barakacayaasha oo dhibaatooyinku soo gaareen mar labaad iyo mar saddexaad waxaan baaq u dirayaa inay hay'adaha gargaarka ay ka mid yihiin WFP oo la kulanay iyo qolada UN-ka oo hore ula kulanay oo dhibaatada Buloburte aan ka warsiinay maadaama aan hore gootoon u ahayn haddana ay gootoon labaad u dhacay waxaan ka codsana mar labaad iyo mar saddexaad culayskii aan hore idinku sheegnay culayska badan aan soo saarmay waxaan idinka codsana mar labaad iyo mar saddexaad in ilaa naxariisna ku fiirsho ilaahay idankii saakay subaxnimadii waxaa joognaa xaafadda Indhaceel oo xalay biyo aad iyo aad u fara badan ku soo fateen xaafaddu isla markaas laba qayb noqotay qaybtii dhinaca buundada dhinaca soogooda qaybtii kale dhinaca fasaxlana waa tan arkaysaan marka annaga hadda awood aan wato waxa ka qaban karna ma laha laakiin karaankaaynu waa isku daynaa isku dayda waxay ka wanaagsan tahay isku dayd la'aanta gargaar degdeg ah loo baahan yahay waxaa laga yaabaa xitaa inuu daacooyin waxyaaba sidaas oo kale ay ka dalashtaan jeemiskan marka hadduu ilaahay yidhaah
inta waxaan ka codsanaynaa sida Buulo Burta lagu soo gaarsiin lahaa gargaar degdeg ah.